السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتني شرفت له كحرا كانال كينا براف إنجليش وحين لها ضعني قاه زكريا محمد عشركيني مانتا وعشركي كوبات وأن كبرنا أما أن كبلا بينه بقولك أوراهيو عن استعمالنا سيد مالين لها إن بقولك أري وحين قندونان إريو أما أوراهيو عن استعمالنا هتبح إن حالة سوى الجهة أما حالة أن كسوغنها مالين تاس إن شاء الله مركي قيبتين كوبادي مانتا كبلا بينه وحن كبرنا إن تضبط أوراهيو عن استعمالنا isbarashada marka qof isbaranaysaan ama qof saaxiibkaaga ama qof aad taqaanid oo asxaabtaada barisid oraahida isticmaali lahayd intaan cashirkeena guda galin fadlan hadaa naga cusub tahay subscribe share like si anaga ay noogu noqoto dhiirigelin adna aad uga faa'iido muuqaaladan soo gelin ama cashirada aan soo gelino mahadsanid haddaan ku bilaabo cashirkeena maanta faahfaahintiisa yar qaybtan waxay noogu qoran faahfaahin yar waxay noogu qoran basic English phrases ereyada asaasiga ah ama oraahida asaasiga ah for introducing yourself marka naftaada tilmaamaysid magacaaga iyo wixii lamid ah or introducing someone to your friends ama marka baraysid ama qof u sharxaysid ama qof marka baraysid asxaabtaada oo kale basic English phrases for introducing yourself or introducing someone to your friends ereyada asaasiga ah ee Ingiriisiga la isticmaalo marka aad qof isbaranaysaan ama qof aad baraysid asxaabtaada marka ereyadan waa erey muhiim ah insha Allah waxay noqon doonaan mid walba aan tilmaamayno todobadaas waxaan hoos idinku sii qorayaa tusaalooyinkiisa ama example oo aan ku fahmi karno waxaan ka hadlayno iyo qaabka loo isticmaalayo qaybtan waxay noogu qoran when you are introducing yourself markaad qof isbaranaysaan when you are introducing yourself marka midda koobaad ama ereyga koobaad qof markaas baranaysaan isticmaalaysid ama qof markaa rabtid magaciisa weydiisid qaabkana tilmaamaysaa ama qaabkana isticmaalaysaa hi I am magaca sheesa and you hi magacaygu waa hebel adigana marka oraahdan ama phrases-kan waxay isticmaalaysaa waa salaan horta qaab ahaan ereygan waxaa loo isticmaalaa qof isku cusub tihiin oo markaas aad baranaysaan this is informal greeting waa kan waa salaan aan caadi ahayn ama si joogto badan aan la isticmaalin laakiin qaybtan waxay isticmaalaysaa marka qof magaciisa weydiinaysid meesha indhaha kasoo geli lahayd magac adiga waxaa samaynaysaa magacaaga u sheegaysaa adigana qaab ahaan weydiinaysaa marka halkan waa tusaale example oo qaybtan number 1 waxaa meeshan ku soo sheegay ayadoo tusaale ama magac ahaan oo soo qaadanayo hi I am Mohammed and you hi magacaygu waa Mohammed adigana qofkii marka hore magacaaga u sheegtay kadib waxaa rabtaa magaciisina awaatid ama magaceeda awaatid ayadana waxa ku leedahay asaga wuxuu ku leeyahay hi Mohammed I am Hassan hi Mohammed waxaan ahay Hassan hi I am Mohammed hi waxaan ahay hi wasalaan hello kale hi I am Mohammed waxaan ahay Mohammed adigana hi Mohammed hi Mohammed I am Hassan waxaan ahay Hassan marka oraahdan waa magaca qofka markaa rabtid inaad ogaatid magacaaga ugu bilow marka qaabkan waa qaab qurux badan marka midda labaad qofka markaas barataan oo kale ereyga isticmaalad number 1 number 2 aan dhahe nice to meet you oo ah barasho wanaagsan ama kulan wanaagsan nice to meet you waa barasho wanaagsan ama kulan wanaagsan qaybtan waxaa isticmaalaysaa labada qof markay magacyadu isdhaafsadaan oo magac ahaan ay isbartaan waxaa isticmaalaysaa oraahdan nice to meet you tusaale marka halkan example maxamed marka waxaan soo sheegnay xasan asbaranayn maxamed magaciisa sheegay kadib xasan uu weydiiyay magaciisa waxay ahayd hi I am Mohammed and you hi magacaygu wuxuu ahaa Mohammed adigana hi Mohammed I am Hassan labada qof magacyada isku sheegeen marka Mohammed qofkii marka Hassan magaciisa marka u jawaabaya wuxuu leeyahay nice to meet you Hassan nice to meet you Hassan kulan wanaagsan Hassan ama barasho wanaagsan Hassan Hassan wuxuu ku jawaabayaa asagana nice to meet you too nice to meet you too kulan wanaagsan adna sidoo kale ama barasho wanaagsan adna sidoo kale
qaybtan waxay ahayd waa isbarashadii labada qof marka isweydiinayso magacyadii intaasay ku yihiin. kadib waxaa laga yaabaa labada qof inay isweydiiyaan su-aalo badan laga yaabaa isweydiiyaan, laakiin su-aasha ugu horeysa waxay tahay labadaas qof isbaranayso oo marka ugu horeysa ay wada kulmayaan waxay noqonaysaa xaggay ka timid, qofka meeshuu ka yimid ama meesha u dhashay oo kale inaad weydiinaysid, ama magaaladu ka yimid inaad ogaanaysid ama weydiinaysid. Where are you from? xaggay ka timid. Where are you from? xaggay ka timid ama xaggay ka soo jeedaa. xaggay ka soo jeedaa ama xaggay ka timid. jumladan ayadana waxay isticmaalaysaa ask this question. Ask this question, su-aashaas weydii, to find out which country the person is from. markaad rabtid inaad ogaatid qofkaad isbarateen wadanka uu kasoo jeedo. waxaa leedahay where are you from. marka weli waxaan dhexda kaga jirnaa xasan iyo maxamed, ayaga tusaalooyinkeena inta badan ku qaadanaynaa. marka nice to meet you too. markuu xasan dhahay maxameda, marka su-aasha maadaama qofka wax baranaya ama qofka magaca ku weydiiyey haddana qofkaas isbaranaan ay yihiin maxameda wuxuu leeyahay marka so haddaba xasan where are you from. xasan xaggay kasoo jeedaa. so xasan where are you from. xasan xaggay kasoo jeedaa. qofkaas waxaa laga yaabaa jumladan ama oraahdan halka inoogu qoran wadan keliya kuma saabsanaa. qof isku wadan joogtaan ama Soomaaliya isla tihiin markaa weydiinaysid where are you from, waxaa ula jeedaa gobolka uu kasoo jeedo ama magaalada uu kasoo jeedo ogaanaysaa. laakiin meel hadaa wada joogtid ajaanib badan ay wada joogaan oo muxuu ahaa qofka la hadlaysidna qof kugu jinsi uusan ahayn, jumladan waxay ku socotaa marka waxaa rabtaa inaad ogaatid qofkaas wadan ahaan ama jinsiyad ahaan meesha uu kasoo jeedo. waxaan rajeynaa inaan isla socono oo muxuu ahaa waxaan sharxayaa fahmaysaan. marka maxamed wuxuu dhahay so xasan, haddaba xasan where are you from. xaggee kasoo jeedaa. I am from Somalia. waxaan kasoo jeedaa Soomaaliya. I am from Ethiopia. I am from Turkey. marka wadanka kasoo jeedid aad sheegaysaa, ama magaalo hadeeta I am from Muqdisho, I am from Kismaayo, I am from Boosaaso. sidaasoo kale qaabkaasaa u sheegaysaa qofka meesha uu kasoo jeedo markaa ratid inaad ogaatid. marka intaas waxay noogu dhameed labada qof isbaranayso. qofna wuxuu baranaa, qofna waa la baranaya. somaan magaca hebel, adna hebel, barasho wanaagsan xaggee kasoo jeeda meel hebel. marka qaybtan waxaan ku baranaynaa, qaybtan waa qaybtii labaad, waxaan ku baranaynaa markaa qof aad baraysid asxaabtaada. mar qof adiga aad taqaanid ama qof adiga kula socdo aad baraysid asxaabtaada ama qof dada isla shaqaysaan markaa baraysid. waxaa inoogu qoran marka qaybtan ayadana leedahay when you are introducing someone to your friends. when you are introducing someone to your friends, markaa baraysid qof asxaabtaada ama dad shaqo wadaaga aad tihiin ama dad ehelka oo kale. marka qof baraysid oo kale, marka aad asxaabtaada baraysid qof. qaybtan ayadana waa sidaan. qofkan waa isla timaadeen, waa isla socotaan, waxaa kor timaadeen ama waxaa u timaadeen dada adiga taqaanid laakiin qofkaas uusan aqoonin. marka waxaa rabtaa qofkaas adiga kula socda isla timaadeen dadkan inaad bartid. marka waa laba qayb ama laba nooc qaabka dadkaas ku bari lahayd. waxaa leedahay please meet hebel, fadlan la kulan ama baro hebel. or waxaa leedahay this is hebel, halkaa meesha name magaca gelinaysaa. tusaale waxaa leedahay please meet cali, please meet cali, fadlan cali la kulan ama baro. or ama waxaa sheegaysaa adigoon la kulan midna aad isticmaalna, waxaa leedahay qofkan waa hebel, kadib ayagaas baranayo anna waa hebel, barasho wanaagsan isla yihiin. You can use this phrase. oraahdan waxaa isticmaali kartaa when you are introducing, markaa baraysid someone qof to your friends, asxaabtaada markaa qof baraysid. marka halkan waa tusaale. you waa adiga marka qofka hadlayo dadka wax barayo, friendsna waa dadka la barayo. adigoo waxaa leedahay marka please meet cali, fadlan la kulan cali, ama this is cali, qofkani waa cali. asxaabtaada waxay leeyihiin nice to meet you cali, barasho wanaagsan cali, barasho wanaagsan cali. fahanteen somaha. marka intaas markay dhahaan oo kale asxaabtaada waa bartay somaha. marka su-aashan shanaad ama qaybta oraahdan shanaad waxay ku socotaa marna adiga kuugu socotaa,
oo qofka isbaranaysaan adigu ku weydiin kara adna waa weydiin kartaa marna waxay ku socotaa qofka aad baraysid asxaabtaada su-aashaas qofkaas in la weydiiyo waxa uu qabto what do you do maxaad qabataa what do you do maxaad qabataa marka su-aashan inta badan dadka waaweyn xagga shaqo wadaaga ama shaqeeyo ama dadka waaweyn oo kale waa su-aal inta badan isweydiiyaan su-aashan what do you do waxay ka dhigantaa ama su-aashan qofkaas ku weydiinaya wuxuu rabaa nolol maalmeedkaaga maxaa qabataa maxaa shaqo ahaan u qabataa noloshaada maxaa qabataa qofkaas wuxuu u qabto ayaa la weydiinayaa ama inuu wax barto ama inuu wax qabto oo u shaqeeyo su-aashaas ugu socotaa what do you do marka weli adiga xasana maxamed iyo xasana weli wadanaa maadaama dadku aan ku bilaaban ay yihiin maxamed iyo xasan maxamed wuxuu leeyahay xasan uu weydiinaya what do you do xasan xasan maxaa qabataa what do you do xasan xasan maxaa qabataa xasan waxaa laga yaabaa marka jawaabtan way badan tahay waxay ku xiran tahay qofkaas waxa uu qabto ama shaqadiisa nooca ay tahay qofkaas waxa uu qabto ama shaqadiisa nooca ay tahay ama inuu wax bartay ku xiran tahay marka halkan waa tusaale uun muxuu ahaa kaga tusaale qaadan kartid hadhow su-aasha haddii lagu weydiiyo qaabka ugu jawaabi lahayd what do you do xasan xasan maxaa qabataa I work as an accountant waxaan u shaqeeyaa xisaabi ama waxaan ahay xisaabiye at the XYZ company XYZ waa tusaale waxaa dhihi kartaa I work as an accountant at Habshiil I work as an accountant at Hormut marka shirkad XYZ booskeeda shirkadda ka shaqaysid ama boos ka shaqaysid magaceeda gelinaysaa waxaan ka shaqeeyaa company Hebel I work as an accountant I work as an accountant at the XY company XYZ company waa company magaciisa sheegaysaa Habshiil Hormut waa companiyada weyn ama dukaanka leedahay ama shirkad ama maqaayad meel walba accountant way leedahay xisaabiye waxaa filayaa inaad fahanteen marka qaybtan oo kale labada qof marka isbarteen oo iswareysteen saan soo sheegay cashirkan qiibihiisa hore aan kusoo sheegay marka labada qof iswareystaan oo marka labadaas qof ay rajeynayaan in kulan dambe ay sii yeeshaan ama si fiican ay isku sii wareystaan oo sheeko kale dhex marto marka waxyaaba qaar laga yaabo in isweydiiyaan waxaa ka mid ah number telephone ama email oo kale in isweydiiyo ama sidoo kale waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo qofkaas inuu Facebook isticmaalo ama Instagram ama social media qofba meeshuu ku badan yahay ama uu xiiseeyo laga yaabo qofkaas inuu ku weydiiyo marka waxaa leedahay can I get your phone number can I get your phone number telefonkaaga ma heli karaa marka su-aashan waxay ku socotaa if you want to keep in contact haddaa rabtid in xiriirka sii badisida qofkaas aad la leedahay oo hadda la kulantay su-aashan aad weydiinaysaa can I get your phone number can I get your email address can I get waxaa leedahay your Facebook account waxyaabahaas kale weydiinaysaa or Instagram-ka kale waa weydiin kartaa meelaha dadka ay ku wada xiriiraan marka halkan waxaan kusoo qaadanaynaa can I get your phone number lambar telefonkaaga ma heli karaa lambar telefonkaaga ma heli karaa waa su-aal muhiim ah oo qofkaas aad rabtid in kulan dambe ama sheeko kale ay idin dhex marto oo si fiican isku sii barataan oo arrimo kale muxuu ahaa oo ku saabsan xagga shaqo iyo waxbarasho waxaas ku saabsan oo wax arrin walba markaas labadiina idin qusaysa is leedahay waa wadaagi kartaan sa uga sii wada hadashaan marka can I get your phone number can I get your email address can I get your Facebook can I get your Instagram waxyaabahaas kale weydiinaysaa qofka tusaale marka halkan maxamed wuxuu weydiinayaa cali waa tusaale meesha magaca qof kale weydiina qofka uu noqon kara laakiin waa tusaale uun kan can I get your phone number lambar telefonkaaga ma heli karaa yes sure ha dhab ahaantii here it is waa kan 1 2 3 lambardaas marka waxaa ugu soo qoray number telefon ahaan number telefonkaaga 07254 lambarka midku doono qofkaas uu leeyahay markaas sheegaysa halkan waa tusaale un lambarkan yes sure ha runtii here it is waa kan waa qaabka marka qaabka labada qof isku baranayaan ama
qof kala baraysid asxaabtaada. Su-aasha marka qaybtan waxay noqon karaan qofka kula socda marka qof baraysna waa la weydiin karaa, adna qofku baranayo wuu ku weydiin karaa, adna waa weydiin kartaa haddaa rabtid xiriir kale oo intaas ka badan inaa wada yeelataan. waa fahanteen soo maaha? marka qaybtan waxaan ku baranaynaa markii laba qof is wareysteen qaabka wada sheekaysiga kusoo xiri lahayd. End the conversation, ending the conversation, dhamaadka wada sheekaysiga, dhamaadka wada sheekaysiga. marka wada sheekaysiga waxaa qurux badan mar walba si qurux badan oo akhlaaq ah oo wanaag oo ku jiro inaad kusoo hawjirtid oo hadhow qofkaas oo ku arko qof aad muxuu ahaa ixtiraam badan u wanaagsan oo hadhow u rajeeyo ama kulankiina dambe oo aad u sii qurux badnaado. marka qaab waxaa jira qaabab badan aa jiro, waxay ku xiran tahay qaababkaas badan qofba danta ay kaaga xayran tahay markaas ama qofba heerka uu taagan yahay ay ku xiran tahay. marka qaybtan aad baranayn waxay tahay qayb guud ahaan dadkoo dhan oo ka wada dhexeeyo oo muxuu ahaa qof gaar ah uu shaqo ku lahayn. marka waa qayb qurux badan. Ending the conversation, xirida wada sheekaysiga. marka qofka dadkaas wareysataan ama qofkaas aad wareysataan oo lambarada kala qaadataan, markaas waxaa leedahay say thank you and goodbye, aad mahadsan tahay, mac salaama, aad mahadsan tahay, mac salaama. marka waxayna leedahay you can end the conversation, you can end the conversation. wada sheekaysiga waxaa usoo xiri kartaa politely, si edabsan, by using this phrase, adigoo isticmaalaysid oraahdan ama jumladan yar. tusaale example, Maxamed, it has been great talking with you, aad bay u fiicneed inaan kula hadlo, aad bay u fiicneed inaan kula hadlo, thank you, waa mahadsan tahay. Maxamed hadalkaas leh wuxuu ku leeyahay Cali, it has been great talking with you, aad u fiican tahay ama aad u fiicneed inaan kula hadlo, thank you, waa mahadsan tahay. marka Cali wuxuu ku jawaabayaa hadalka maadaama uu wuxuu ahaa Maxamed uu soo xirayba erigan waa hadalka qaabka lagu soo xirayo. Cali wuxuu ku jawaabayaa my pleasure, anna sidoo kale aad u wanaagsaneed in adigu kula kulmo, goodbye, mac salaama. marka waa qaabkan oo labada qof marka isku bartaan insha Allah maalinba cashirkeena wuxuu noqonayaa qaab gooni ah oo xaalad gooni ah qusaysa. marka intaan cashirka xiga aan ku kulmeyno waxaa idinkaga tagayaa khayr iyo barwaaqo iyo baraare. sidoo kale adinkan ha ilaawina subscribe-ka iyo inaad la wadaagtaan ehelkiina asxaabtiina muuqaaladan iyo cashiradan aan soo geliyo si anaga inoo noqoto dhiirigelin idinkana u faa'iidaysataan. sidoo kale ha ilaawina in like gareysaan intaynan cashirka xiga ku kulmeyno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.